Yo guys, waan salaamay dhamaantiin meel walba caalamka joogtaan. Waa walaalkiin Yamin Xasan ah. Idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga. Haddaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid. Aadan ka hilmaamin inaad taabatid gambaleelkaas aad ula socotid muuqaalada soo socda. Maanta halkan waxaa u fadhiya waxay tahay inaan ka jawaabo su'aal dad badan oo isticmaala social media-ha ah isweydiiyaan qaasatan kuwa wax soo dhigaya. Su'aashana waxay tahay sidee ku noqon karaa qof la yaqaano ah ama sidee ku noqon karaa qof caan ah. Su'aashan dadka badankooda way isweydiiyaan oo social media wax soo bandhigayaan oo aniga ka mid ahay. Su'aashan se u fududahay in aad isweydiiso waxay ka adag tahay maskaxdaada in aad ka jawaabtid. Waayo qof walba isweydiiya su'aashan aniga hadda kula hadlaya waan soo maray xaaladaas. Waayo qofku wuxuu dhahaa maxaa soo bandhigaa, sidee dadka ku garan karaan, maxaa u soo bandhigtaa, maxaad u sameysaa. Marka su'aashan saa u malaysid inay easy tahay, easy ma ahan. Jawaabteedu waxay kugu abuureysaa in aad stress aad u gashid. Waayo maalin walba waxaad ka fikiraysaa maxaa dadka u soo bandhigi kartaa, maxaa dadka aad ula wadaagi kartaa, maxaa dadka ay jeclaan karaan aad u soo bandhigtaa. Dad qaar ayaa xadka ka baxayaan si ay u fikirayaan sidaas, waxayna sameynayaan wax aysan sharciga aanan ogoleen. Sharciga aan ka hadlayo waa sharciga diinteena islaamka ah, kama hadlayo sharciga YouTube-ka ama social media-ha ay isticmaalaan. Marka su'aashaas aad iyo aad ayay u adag tahay. Laakiin anigoo maalmaha ka mid ah su'aashaas aan isweydiinayo oo stress igeliya dadka maxaad ula wadaagtaa, dadka maxaad u sheegtaa, dadka maxaad u soo bandhigtaa. Anigoo stresskaas hayo ayaa mid ka mid ah sheekhayaasha aan ugu jecelahay aan iska dhageysanayo wacdi cusub oo soo saaray oo muxaadaro cusub oo soo qabtay markaas bas iska shitay anigoo iska dhageysanaya ayuu wuxuu soo qaaday xadiiska uu soo qaaday ma aha micnaheeda inaan hadda ka hor aanan maqlin, balse waxay ahayd xadiiska ee maskaxdeeda ee ka baxsaneed aanan maskaxdeeda ku soo dhacin. Xadiiskan wuxuu ahaa qofka markuu uurka hooyadii ku jiro ayaa wuxuu lagu qorayaa wax walba oo ku dhici lahaa amaba arsaaqdiisa halaxuu cuni lahaa. Markaas waxaan maskaxdeeda dhahay hadday kuu qoran tahay in aad noqotid qof la yaqaano ah, si walba aad sameysid amaba waxba sameey waxa rabtid amaba waxba ha sameynin waad noqonaysaa qof la yaqaano ah. Markaas maskaxdeeda waxay ku soo dhacday qof oo Pakistani ah, wiil Pakistaniyaan ah. Wuxuu ahaa mid ka ganacsada shaaha ayuu gadaa. Mid ka mid ah fotografayaal oo dadka sawiraha qaadaha ah ayaa wuxuu qaaday sawir cajiib ah. Markaas sawirkaas wuxuu soo dhigay baraha bulshada. Markaas sawirkaas dadka aad uga heleen, way sii share gareeyeen. Qofkaas ma u maleynayo inuu ka fikiray inuu noqdo caan. Waayo qofka markuu caan rabo inuu noqdo ama inuu noqdo qof la yaqaano ah, wuxuu sameeyaa waxyaalaha uu ku canbaxi lahaa. Laakiin ninkan wuxuu ahaa mid iska ganacsada shaaha iska gada. Markaas sawirkaas ayaa viral noqday oo dadka dhan wada qabsadeen. Markaas waxaa soo dalbatay waayo wuxuu lahaa indho aan caadiba ahayn. Waxaa soo dalbaday kuwa fashion dharka xayeysiiya model inuu noqdo laga dhigay aad soo dalbaday. Marka waxaa la siiyay shaqo oo modelist ah oo dharka xayeysiiya. Marka ninkaas ma u maleynayo inuu ka fikiray inuu aan noqdo, balse way u qorneed inuu noqdo qof caan ah, wuuna noqday. Sidoo kale dalka aan hadda joogo oo Kenyadan aan joogo waxaa jiray xilligii doorashada ahaa nin oo u istaagsanaa ama leenka ku jiray inuu u codeeyo qofku rabo inuu madaxweyne u noqdo. Markaas leenka inta aad iyo aad ayuu dheeraa, mana soo quraacanin. Wuxuu soo qaatay digir, wuxuuna geliyay wuxuu ku shubay bacda. Kadib asigoo bacdaas wata ayuu safka ku jiray. Magaciisa waxaa la dhihi jiray Gidiriman. Marka ninkan mid ka mid ah oo safka ugula jiray ayaa wuxuu ka qaaday sawir, xitaa ma ahayn sawir oo camera loogu qaaday, waa sawir telephone lagu qaaday. Kadib ayagoo just ku sameynayeen as a joke camal ayay social media soo dhigeen. Marka sawirkaas ayaa qof walba isticmaalay as a joke ahaan oo isticmaalayeen, balse sawirkii ayaa gadmaday. Ninkaas xitaa ma umaleynaya inuu telephone isticmaalayo in kale. Telephone waxaa ka wadaa kuwa touch screen ka smartphone
kadib ninkaas ayaa waxaa soo dalbaday shirkadda ugu weyn ee leemaha bixiyaan ee dalkan aan joogno Safaricom ayaa dalbaday waxayna siiyeen guri hadiyad ahaan ayay u siiyeen kadibna waxaa wareysteen TV-yaasha ugu caansan ee dalkan aan joogno kadib xitaa wuxuu gaaray warkaas madaxweynaha dalka kadib wuxuuna u geeyay meesha oo asiga dharka loo tolo يعني suudadkiisa loo tolo ayaa meesha la geeyay waxa leeyahay hadda 4 sano kadib meeshan ayaa dharkaaga u xilsaaran maalinta rabtid waa imaan kartaa dharka rabtidna waad ka qaadan kartaa tabcan markaan xasuustay waxaan dhahay qof walba walaahi markii la hayo wax ku qoran kuma gafaayo haddaysan ku qorneena si walba aad sudaysid heli maysid marka waxaan rabaa in idin xasuusiyo iyo nafteeda aan xasuusiyo waxa noo qoran gafimeno marka adigana ahaantaada hadda rabtid inaad noqotid qof la yaqaano ah ma xumo balse waxaad ogaataa qof walba oo la yaqaano ah waxa saaran mas'uuliyadna waxay tahay maalinta qiyaamaha horta waa nal weydiin doonaa dhammaanteena aniga xataa inaga daawanaysiin waxa kamid ah dadka wax u soo bandhiga markaas dadka kugu xiran adiga ay ku xiran tahay maxaad u soo bandhigaysaa waxaad u soo bandhigaysidna waa waxa lagu qabsan doono ama ba lagu su'aali doono ogow marka hamoodin inay ciyaar tahay waayo kullukum mas'uulun kulligiina mas'uul ayaad tihiin dadka kugu xiran adiga mas'uulka ah waxa u soo bandhigaysid hadda u soo bandhigtid wax xun ee ku dhaqmaan adiga ayaa lagu xisaabtan doonaa haddaad u bandhigtid wax khayr ah ee kuwada yani ay ka faa'iideystaan adiga waxaad ka leedahay marka aan isku dayno anagoo oo hadlaya dadka social media isticmaala ama wax social media wax soo bandhigaya aan u soo bandhigno waxyaalaha ayaga aan nuqsaan u yeelin ama ba anaga nuqsaan noo yeelin waayo waxa soo bandhigi kartaa wax ayaga ay ku farxaan waxyaalo qaar jiraan azin oo yani dadka iska farxad gelinaya aysan nuqsaan ku geysanayn adiga hana la wadaagin qof war aadan adiga hubsanin waayo waxa jira dad qaar waxay iska maqlayaan waxaas ay iska faafinayaan warkaas ma fiicno inaad faafisid ilaa aad ka haysid cadeen cad ah aad dhihi kartid waxaan aniga ayaan arkay ama ba aniga ayaan dhigteeda ka maqlay marka tabcan dhamaantiina waad idinka mahad celinaya inta idaawatay muuqaalkayga waxaan idinka codsanayaa inaad la wadaagtiin asxaabtiina aad ogtihiin in ay social media wax soo bandhigayaan si ay u ogaadaan mas'uulka ayaga saaran ma aha macnaheeda inaysan aqoonin waxaa loo baahan yahay in qofka muslimka ah inuu qofka walaalkiisa muslimka ah inuu wax xusuusiyo ama wax u sheego hadduu ogaa xasuus ayay u noqonaysaa hadduusan ogeenna wuu baranayaa marka tabcan inta ku wada kulmi doono muuqaalka loo sidan ah waxaa idinka tegayaa sida iyo nabadgelyo